الله الرحمن الرحيم دكتور معروف ayaa idin la hadlaayo maanta waxaan rabaa inaan isku hortaago oo aan waxyar ka sheego waxyaalaha sababa qofka inuu uur qaadi waayo ama in uur la heli waayo normally in uur la heli waayo xaq alle ku xiran tahay laakiin insha Allah waxaan ka hadli doonaa sababaha Ilaahay oo keenay oo qofkaas uurka uu qaadi waayo sababaha marka waxa waaye in natural qofka uu xanuunsan yahay sababna waxa loo yaqaan risk factor waaye marka uur aan ka hadlayna in qofka uu uur ay qaadi wayso gabadha laba dhinac ay ka imaanaysaa waxaan ka hadlayna waa qofka in infertility noqdo ama dhaleysnimada laba dhinac aan uga hadli doonaa dhinac waxa waaye in waxaan ay sababaan from the female side dhinaca qofka dumarka ah inay ka imaataa ama inay ka imaataa male side oo ah qofka ragga ah inay ka imaataa oo dhadiga ah markaan ka hadlayna dhanka maanta waxaan rabaa inaan waxyar aan ka fiirino ama aan waxyar ka hadalno dhanka female ka ama dhadiga inaan ka hadalno dhadiga markaan ka hadlayna ama gabadha markaan ka hadlayna normally hadii waxaan ognahay fertilizationka markuu dhacayo ama bacriminta caadiga ah markay dhacayso waxa jirto spermka oo kale ninka ragga markuu shahwada uu soo deeyo waxa dhacaysa wax loo yaqaano fertilization ama bacrimina dhacayso fertilizationkaas inta badan waxay ka dhacaysaa waa in qofka uu ka fiyo yahay hooyada waa inay ka fiyowdahay fast waa inay uteruskeeda ama minkeeda inuu fiyo yahay fallopian tubeskeeda inay fiyo yihiin iyadana inay sameeyso wax loo yaqaan ovulation oo in ogxantii la soo daayo ay imaataa meel loo yaqaan ambula meeshaasna ay imaataa spermihi halkaas kaleetana oo gabadhii ogxanteedii ay imaataa markay isqabsadaan waxay dhacaysaa wax loo yaqaan fertilization normally marka gabadhii hadii ay problem ay ka qabta ama ay ka jiran tahay ogxantii oo ovumki la soo deyn lahay oo ogxan soo deyntii ay ka liidato ama failure to ovulation wax loo yaqaan ay dhacdo iyadana ma dhacayso wax uur ah ovulationka inuu yiraahdo waxa kale oo imaanayo maadaama fallopian tube ay ka dhacayso meesha uurka uu ka dhacay ay tahay ama marinka uurka uu ka dhacay normally maadaama ay tahay fallopian tube iyadana hadii uu xiran yahay tube mid kamid ah hadii uu xiran yahay ama labadaba ay xiran yihiin wax loo yaqaan tubal obstruction ama fallopian tube obstruction haday jirto iyadana uur ma dhacay sababta spermki meeshii oo mari lahaa wadada ay mari lahayd ayaa ka marka in fallopian tube uu xirmo normally laba u kala qaadayna mid waxa waa fallopian tube inay ka soo baxaan oo kale wax loo yaqaano buro oo kale inay ka soo baxda ama in yaani ay keentaa wax loo yaqaan PID ama pelvic inflammatory disease oo kale inay keentaa oo meeshaas obstruction oo ka dhaca hadii marka PID uu dhaco normally waxa dhacaysa wax loo yaqaan salpingitis ama maxay fallopian tube abscess waxa la dhacaysa in meeshii ay ku abuuranto abscess ama inay meeshii ku abuuranto waxyaabo bas badan inuu galo oo meeshii ay gasho dhacaan maal leh inuu meeshii gasho kadib waxa qofka hadii dhacankaas uu gala waxa imaanaysa inay xiranto wadadii fallopian tube-ki marka obstruction sidaas ay ku sameeyaan kartaa obstructionkaas marka haduu dhaco normally qofkan uur ma qaadi karta gabadha ilaa laga daaweeyo PID-ga oo loo furo tube-kaas tubadaas loo furo qofka uur ma qaadi karto marka in uur aan la qaadin hooyada dhankeeda waxa kale oo problem uu ka iman kara hadii minka qaabka uu normally Ilaahay uu sameeyo uu tala galay si ka duwan hadii uu sameeysan yahay oo qaab kale uu sameeysan yahay in gabadha ku dhalato genital abnormality inuu yahay ama wax loo yaqaan endometriosis hadoo jiro oo kale tissue ama cellski minka uu lahaa hadii ay meel kale ku abuurmaan iyadana uurka qofka ma qaadi karto waxa kale oo qofkan gabadha inaysan uur qaadan keeni karo waxa kamid ah hadii problemka uu ka jiro minkeeda tusaale ahaan hadii minka uu ka soo baxo waxa loo yaqaan fibroid ama tumor ama buro inay ka soo baxdo minki buradaas oo keenaysa marka in obstruction uu dhaco ama uurkii in la qaadi waayo ka qayb qaadanaysa maadaama qofku buro ay qabta inay iyadana uur ay qaadi wayso waxa kale oo keeni kara waxa kamid ah imbalance of hormone ama hormonki gabadha hadii uu yarayo tusaale ahaan waxaan ognahay hormoneska gabadha inay uur qaada keenayo waxa kamid ah hormoneskan loo yaqaan progesterone estrogenka hormoneskaas marka waxa laga soo daayaa sida ognahay ovary meel loo yaqaano in ovary laga soo daayana waxa ka qayb qaadata meelo kale sida maskaxda qofka pituitary gland in laga soo amro in kadib adrenal gland system isku xiran waayo systemkaas haduu failure yahay iyadana ama hormone systemkaas ha ka yaraado ama ovary ha ka jirnaato oo muraha ma ha u dhacdo iyadana waxay keenaysaa in qofka uur qaadi wayso marka burooyinka uur maaragtay ovary ku dhacay waxa ugu caansan mid loo yaqaano polycystic ovarian syndrome iyadana waa mid kamid ah inay gabadhii uur qaadi wayso normally intaas iyo wax kale waxay la xiriiraan natural diseaseska ama waxyaalaha qofka keenaya waxa kale oo jiro nolosha caadiga ah qofka hadii ay wax ka bedesho gabadha hadii ay cigarette smoker tahay sigaar badan hadii ay cabto iyadana waa riski u tahay qofka inay uur qaadi wayso more exercise hadii sameeyso orod badan hadii ay sameeyso gabdhaha athletics-ka inta badan sameeya ama orodada ka qayb qaato iyagana inta badan uur ma qaadaan la dhaha gabadha hadii ay tahay alcoholic ama alcoholism hadii tahay khamriga aad ay u caawiyayso iyadana sidoo kale uur ma qaadi karto iyo waxyaalo kale la xiriir. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.